maxaa gogol fadhigii aad in badan adinkeedii ka mid a aad u ahaydeen gogol fadhi dadkii Soomaaliyeed ee tacsiidan u yimiday ee tacsiida gudanayay aad iyo aad ayaad muxuu ahay ugu mahadsantiin hawshaas aad muxuu ahay noo wada qabateen maanta iyo ka horba inta nimaad waa jeclaan laakiin mashquul adduunyo unbaa yaa dib noo dhigaya dhibaato kale ma jirin imaam maxamed yuusuf allah u naxariisto aniga si gaar ah ayaan saaxiib u ahayn dabcan oday Soomaaliyeed oo shirarkii dib u heshiisiinta dowlad dhiska Soomaaliya intay dhacayeen oo dhan ka mid ahaa odayaashii ugu waaweynaa geed fadhiga u ahaa ayuu ka mid ahaa si qaasa aniga iisii taabataa 2012 markii ugu horreysay aan xildhibaan noqday xildhibaanadeeda ninka saxiixa u ahaa oo muxuu ahaay dadaal badan iyo meelo badan la isku qabsaday akhyaartii waa joogaan suldaan shidda ka mid ahaa oo meeshaan fadhiya asigana muxuu ahaay cumrigiisa allah raajiyo intaasi wixii iyo inta ka horreysay kasii hor dowlad dhisidii soo socotay hadday tahay carte hadday tahay imbagaati hadday tahay meelo badan imaamku muxuu ahaay dooru ku lahaay mar walba iyo maxaan ku ihahdaa intay la ekaydba meeshaas odayaashii akhyaarta ahaay qaar badan oo ka mid a allah u naxariista waa dhinteen qaarna waa fadhiyaan waa joogaan dowlad dhiska iyo dowlad soo gaarsiiyey maanta meesha ay joogto ayay ka mid ahay marka Soomaalidu imaamka allah u naxariista wax badan oo dadaal Soomaaliyeed ah ayuu ku soo jiray imaam reer gaar ah imaam u ah ku magacaaban waa ahaa laakiin howlihiisa inta badan ma ahayn howlo oo reer gaar ah muxuu ahaay shaqadooda ku xadidan ma ahayn marka muxuu ahaay allah u naxariisto dhammaanteena sabir iimaan allah naga siiyo si khaas ah qoyskii iyo eheladii oo ka dhashay oo ka baxay sabir iimaan allah naga wada siiyo maxaan ku raadayay waa horan waa isugu tacsiin igaalkayga iyo akhyaarta ka adeeradii kulli waa wada arkay allah u naxariisto waxaan rabaa haddee imaamkii waa tegey waa naxariist rabbi ayaan u baryaynaa in ilaahay samri iimaan annagana asna u naxariisto janno qabrigiisa u waasiciyo imaamka soo socda oo mas-uuliyaddu ay ku wareegeysaan hawl culusaa ku wareegeysa isagana waa u ducaynaynaa in ilaahay maxaan ku yidhahdaa hawsha oo fududay uu la garab galo annaguna imaamnimadaasi sida ay tiir iyo xoog u lahaa lahayd Soomaalina ay ugu shaqayn lahayd inaan ka wada shaqayno oon ku garab istaagno waaye intiinay timiday muddada usbuuca halkan isaga soo daba noqonaysay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin xil weyn oo wanaagsan ayaad naga dhamayseen mar kale galabtaa gogosha ugu dambayso waa xiranaynaa waa la ila sugay waa la dhowray waa mahadsantihiin waana ka ducaynaynaa in ilaahay maxaan ku idhahdaa qabrigiisa u waas asaan u ducaynaynaa in ilaahay qabrigiisa u waasiciyo jannatu firdowsana ilaahay uu ka waraabiyo annagana gadaashiis ilaahay nama fidnayo sidii loo wada yiri khayr iyo adinkuna waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh